degdeg saakay waxaa gurigiisa lagala baxay Saadaq Cabdiqaadir Abtuu ahay Layla wiilkii qabay oo baryahanba kiiskiisu socday sawirkiisa la raadinayay hadalkiisa aad goobayseen oo daawadayaasha ay xiiso u qabeen inay wajigiisa arkaan ninka oo gebi ahaanba dadka aan u abuurnayn kaamirooyinkii waxa ay nan jalent waay ninkaas gaalada nan jalent ee dhahan anaa la noolaa aniga ay jeedaan aan dhal markaa noqday oo ku noqday Soomaaliya gurigiisa markaa tagay dad kala dhan way ila galayeen kaamirada aswaa diiday wiligiisa soo ahaa maadaama ninka maalimahan bal la goobayay sawirkiisa haddaba saakay xaafada uu degan yahay Madiino Dharkeenley degmadaas ciidankeedii saldhigeedii ciidan ka socda ayaa gurigiisa ugu galay 9 subaxnimo waa la booday waa la baxay saldhiga ayaa la geeyay waxaana lagu yiri waxa ku soo dacweysay Layla walaasheed Layla ayaad u hanjabtay dil warbixinta ma haysan markale ayaan ku celinayaa idaacadda CK Family oo 25 war aad u culus bahisay warkaas oo Layla iyo Saadaq wiilkii qabay Layla oo Madiina degan degmada Dharkeenley oo saakay gurigiisa lagala baxay waxaana la baxay degmada Dharkeenley saldhigeeda ciidan ka socda ayagoo u sheegay in dacwo laga soo oogay oo dacwada ay soo oogtay dumaashidii Layla walaasheed taa oo tiri wuxuu dil ugu hanjabay Layla oo aad ogtihiin in maalimahanba xaalkeedu uu social media haysto abaara 3 saacadood oo saldhiga lagu hayay 12 iyo dhowr daqiiqo meelaha ayaa la soo daayay isagoo lagu yiri gabi ahaanba waxa lagu soo waayay wax cadeema daawade haddaba arinka maxay kula tahay Saadaq ayaa la doonayay qaab sawirkiisa lagu helo maadaama maalimahan ninka la goobayay isagana uu guriga ka soo bixi waayay maadaama ninka wax sawir aan laga haynin ma kula tahay markaa in Saadaq sida sawirkiisa lagu helo ay dacwada ka dambeysay ma kula tahay markaa gabi ahaanba maadaama anagu aynu u baqaynay Laylo xaalkeeda ama Laylo amnigeeda in Laylo walaasheed ay u baqdayba gabi ahaanba sida hadda Saadaq lagu dacweeyay ee la leeyahay wuxuu u hanjabay Layla warbixinada dheeraadka ayaga ayaa soo bixi doona balse hal mid ayaan leeyahay midaas oo sawirka laga qaaday Saadaq ee looga qaaday saldhiga haddii sawirkaas aan aragna caawa ayadoo meelaha lala wareegaya shakada dhinaca u dhacday iska fahmi kartaan already dhinaca kale haddaba marka wali waxa la sugayaa reer UK ayaa wali la sugayaa oo aynu uga fadhinaa in ay noo keenaan warbixino aan ku farxno kuwa oo ku saabsan Layla arinkeeda